kulanti wacan oo xiisale daawadayaasha hawada nagala socdo waa Horfadhi Media iyo barnaamijkeeni falaqaynta Jimcaha oo mar walba ay qaybta ka yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyagoo markaas noogu soo dira fikradooda dhanka WhatsApp-ka iyo bogga Facebook-ga waxaa naga codsi inaad raacdaan ama noole gareysaan bogga aan Facebook-ga ku leenahay ee Horfadhi Media si markaasi ay kuugu fududaato inaad mar walba nala wadaagto fikradaada iyo talooyinka lagama maarmaanka ee aan mar walba u baahanahay. aan ku soo noqdo barnaamijkeeni falaqaynta Jimcaha markaasina aan idin gudbiyo xaash. Engineer Yasin aad baad u mahadsan tahay dabcan waa jimceesaad sheegtayba waxaan barnaamijkeena dabcan ku eegi doonaa seen hore ugu ballan qaadnay daawadayaasheena Soomaaliyeed ee qiimaha leh inaynu markaas wax ka niraahno adduunkana ama sawir guud aanu ka bixino halka siyaasadda caalamka iyo yamahan marisay inagoo dhaweetay wararka si xoogan u wadnay wararkuna ay aad u badnaayeen ama trabeel yihiin mar walbana wararku ay badan yihiin caalamka ku saabsan iyo danahan caalamka kale leeyahay marka waxaan rabaa inaan saddex qaybood aynu kala dhigdhigno aynu ka horreeyno arinta bariga dhexe aynu ugu horeysiino qadiyadahan bariga dhexe ka soo fufaya ama ka soo bitaacaya waxaan rabaa in daawadayaasha aan dhex geeyo qodobo ku saabsan khatar xoogan ayaa bariga dhexe ka soo jijiiray ama ka soo muuqata sida muuqata Israa'iil waxay ku jirtaa diyaar garow dagaal oo ku saabsan ama ka dhanaha dalalka Carabta qaarkood iyo dalkan Iran hase yeeshee ma jirto marka saa loo eego marka sawirka waa sawir guud marka saa loo eego ma jiro dal Carbeed oo isagu isku diyaarinaya inuu Israa'iil dagaal ku qaado marka laga reebo kooxahan Hizbullah iyo ururkan Hamas la yiraahdo oo iyagu mar walba wadnaha farta uga haya inay weerar xagga ka yimaada ay arkaan oo ka yimaado dalkaasi Israa'iil hase yeeshee dalka haatan u muuqda ee cadaystay inuu Israa'iil markaas u babacdhigo waa dalkaasi Iran oo runtii asagu aad moodo inuu fahansan yahay talaabooyinka ay Israa'iil wado waxuna isku diyaarinaya dagaal waxa la sheegayaa sirdoonka caalamka gaar ahaan kuwan reer galbeedku ay si weyn u tilmaamayaan ama u tibaaxayaan in gantaalahan ridada dheer ee Iran leedahay haatan la isku haysto ee doodiisa u soo celiyay madaxweyne Trump ay haatan ku diyaarsan yihiin dalkaasi Syria isla markaana khubaro military iyo ciidan military oo dalkaas ka socda dalka Syria baabacay ay joogaan oo ay ka socda Iran Israa'iil waxay dhawaan sheegtay inay dagaal 5 girjooha ama 5 baynijo ay qaadi doonto oo ay horay u taxnay oo ay ku kala tilmaantay inay dhinacan Sinai oo hadeerto ay dagaal ka wado xuduudan ama deegaanka Sinai ee Masar iyo u dhaxeeya Israa'iil ay ka wado uga imaan kara weerar inay isku diyaarinayso weerar dhinacan uga imaanaya waqooyi jihadan ay u bixisay oo ay ula jeedo dalkaasi dalkan leeyahay Lebanon oo wixii ka jooga Hizbullah iyo Syria iyo Gaza iyo Ramallah iyo bari oo ay ka dhigtay dalkaasi Iran marka haatan Israa'iil xageeda diyaar garow xoogan bay ka wada dhinacaas waa bariga dhexe sidoo kalena xaaladii Yaman ayaa wali taagan khilaafkii Carabta ayaa wali sii xoogeysanaya danihii Carabta ayaa wali sii jira dalka Imaaraadka Carabta wuxuu wali si xoogan u wadaa ama si dadaal leh oo u wadaa inuu khilaafka dalalka Islaamka aad u sii maartay uga sii qayb qaato iyaga iyo Turkiga u dhawaan hadeer waatii ay iskhilaafeen barnaamijyo iyo waliba musalsalo Turkiga leeyahay diro bilaabeen inay warbaahinta Carabta gaar ahaan TV-gan MBC ay ka joojiyaan in talabooyinka sinad wax kala sii dhalaan waa laga yaabaa tartan xoogan oo dhinaca ganacsiga ana waa jira qadar iyadu isxoojinteedii iyo ciidan iibsigeedii aan la hub iibsigeedii iyo ciidan xoojinteedii iyo waliba ciidamo xataa ay dalal ka soo urursanayso dalka Soomaaliya kamid yahay way wada tababar xoogan baa loo wada ciidamadaas xataa dhalinyaradii Soomaalida heeda laga soo qaaday dalkaasi Soomaaliya waxa ama deegaanada Soomaalida laga soo qaaday waxa la sheegay tababar xoogan loo wado oo ciidamada Turkiga iyo kuwa Faransiiska ayaa tababar xoogan u wada baa la sheegaya si xoogan bayna halkaas isdiyaar garow xoogan oo uga jira dalka Turkiga hadaynu asagana eegno waxa muuqata inuu asaguna afar jibaaray dadaalkiisii saameynta caalamka dalal badan oo haatan ku yaala qaaradda Afrika iyo bariga dhexe ayuu Turkigu si xoogan ciidamadiisa doonayay inuu saldhig uga dhigto dalka Algeria iyo dalkaasi Suudaan baa ugu dambeeyay dalalka haatan uu doonayay inuu ka dhigto saldhig military jasiiradan hadeerto uu dalkaasi Turkigu ay
ay la wareegeen Suudaan oo ah marinkii markii hore dowladda Cismaaniyadu ay ka ilaalin jirtay xilliga Cismaaniyada ay ka ilaalin jirtay Makka iyo Madiina ayaa haatan Turkigu dib u abaabulaya ciidan buun halka geed doona sidoo kale dib u dhisaya dalka Algeria ciidamay geeyeen waxaana laga yaabaa inay waaxda galbeed ay ugu talagaleen halkana marinkan Babul Mandab ay ugu talagaleen jasiiradan haatan ay Suudaan ay kala wareegeen ama ay Suudaan ay siisay ama ay dabcan idhaahdo ay u dhiibtay inay ka Turkiga ay maamulaan ama ay maalgeliyaan oo dib u dhisaan sidoo kalena waxa muuqda wakaalada wararka ee leeyahay Reuters oo kale dhawaan waxay soo qortay in Turkiga ciidanka badda uu geenayo Sukena ama meelka Sukin aan idhaahdo jasiirada Sukin ay noqon doonaan ciidan culus oo maraakiib culus oo markaasi awood badan leh la geeyo doono waxay leeyihiin 3 markab oo waaweyn oo labana ay yihiin kuwa ciidamada xambaara midna uu yahay mid markaasi gantaalahan maartay ridada dheer ay saaran yihiin iyo cruise ay saaran yihiin halkaas geed doonaan halkaasna ay base ama saldhig ciidamada ku yeelan doonaan marinkan Babul Mandabna uu aad ugu dhawaad doono iyo marinkan caalamiga ah ee Europe iyo isku xira badan Indian Ocean oo ah surin muhiim ah arintaas Turkigu sidoo kale dhaqaalihiisa uu gelinayo dalalka Afrika ayuu xoojinaya dalalka haltan galbeedka Afrika oo dhan buu cagta soo mariyay madaxweyne Turkigu toddobaadkii hore wuxuu tagay dalalka Mauritania wuxuu tagay dalka Algeria wuxuu tagay Senegal wuxuu sidoo kale soo maray dalkaasi la yiraahdo dalka la yiraahdo Guinea Bissau waxaana muuqatay in madaxweynuhu Mali buu sidoo kale tagay inuu aad u xoojinayo arrimahaas Europe iyo Mareykanka iyagu haatan oo awalba iyadoo midowga Europe uu aad uga cabanayay xukunka Trump oo leeyahay midowga gaashaanbuurta NATO ayuu weeqaya fursadna wuxuu siinayaa Ruushka hadeerto ayagana dagaal waxa ka dhex qarxay ama ka dhex bilowday dhinaca ganacsiga yaasin marka leego xaaladda caalamka aad iyo aad bay si kala durdurkaysaa dalkaasi hadeerto oo dalalkaasi heer waxa la gaaray xataa maamulka madaxweyne Trump ee aqalka cad ay ku kala qaybsamaan madaxiisa dhinaca dhaqaalaha ninkii jiray Cohen ayaa iscasiray oo xitaa ilaa xad isagoo doonaya inuu muujiyo in Europe iyo Mareykanka ay kala maarmin iscasiray laakiinse uu ku raaxaysanaya madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay anuu dagaalka wuxuu yiri dhinaca ganacsiga waa ku raaxaystaa ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka waana jeclahay buu yiri dabcan marka loo fasirana waa runtiisa oo dabcan nin ganacsada uu yaqaanaa sida dagaalka ganacsiga loo galo marka si xaqiiqo la isku dul taago Europe lafteeda waa tan hadeerto kala dhantaal xoogan uu soo fasaaray dalka Britain waa kuwan ka baxay midowga Europe iyaga lafkooda halkaas khilaaf xoogan ayaa jira arinta Turkiga ay ku soo biiritaanka midowga Europe way ku kala qaybsan yihiin dalalka hadeerta galbeedka Europe la yiraahdo oo dalka Turkiga aad u cadaadiya bedelkoodii dalalka bariga ama dalalka Balkans ka saaran ee bariga Europe oo dhawaan iyagu inkastay ku biireen midowga Europe hadana goobo istiraatiiji ah ku yaala inta badankoodu waxay calaaqad fiican la sameysteen dalkaasi Turkiga wali asagana culayskan dhinacan magaaladan Afrin uu haysta hase yeeshee waxa la aaminsan yahay in galitaanka ciidamada Turkigu ay ka salweyn tahay wax ku saabsan kooxdan yar YPG ay tahay inay doonayaan inay ka mid noqdaan markaas saamileyda wadankan ku yaala meesha istiraatiijiga ah Syria oo Turkigu uu doonayo inuu halkaasi aan looga soo hadhowto dhinaca Iraq iyo aan laga soo weerarin hadii marxaladaha caalamku isbedelaan cabsi xoogan baa dunida ka jirta qof kasta oo adduunka arrimihiisa analyze gareynaya ama qaadatigaya ama ku sameynaya wax la yiraahdo maartay ama istiraatiijiyada caalamka maartay la leeyahay danaha la kala leeyahay muujinaya wuxuu aad iyo aad uga anfariirsan yahay sida marxaladda caalamku noqon doonto 10 sano gudahood oo la aaminsan yahay in wax weyn ay dunida iska bedeli doonaan dalkaasi Shiinaha iyo Mareykanka wada ogtihiin xaaladooda meel culus way maraysaa badda Shiinaha ama badda la yiraahdo South China Sea haatan waxa ku sugan markab kamid ah kuwa Mareykanka ugu culus oo maartay oo ama ugu awood badan ay la yiraahdo USS Carly oo gaaray dalkaasi Finland magaalada Da Nang ayuu ku sugan yahay asaguna halkaas iyadoo xiisad xoogan ay kala taagan tahay dalalka ku teedsan baddaas iyo dalkaasi Mareykanka sidoo kalena waxa dalkaasi Shiinaha aan iraahdo iyo dalkaasi ku teedsan xeebtaasi sidoo kale qadiyadii Ruushka wuxuu aad u xoojinayaa hay'adiisi dhinaca dabagalka iyo walaynta dadka markaas iyaga ka baxsada iyo kuwa iyaga khatarta ku ay Europe ku ugaarsanayaan ee ugu dambeysay labada qof ee isdhalay ee haatan ay ku qarajiyeen duleedka magaalada London magaalada degmada Salisbury sidoo kale waxa aad u xoojinayaa Ruushka wuxuu aad u xoojinayaa cilaaqaadka uu leeyahay Turkiga sidoo kale wuxuu aad u xoojinayaa ciidamada
farsamadiisa iyo horumarinta dhinaciisa hubka nuclearka dhawaan wada arkayeen gantaalihii casriga ah uu soo saaray gantaalkii ugu dambeeyay wuxuu aad xoojinayaa awoodiisa dhinaca internetka iyo awoodda uu yeelan karo inuu kharbudo ama uu farageliyo doorashooyinka dalalka oo uu dhalan rogo ama uu jallado si markaasi uu dhaliyo kala qaybsanaan xoogan oo bulshadaas timaada dhawaan gabadhii arrimaha dibadda inta badan ahayd wasiirkii arrimaha dibadda dalka Condoleezza Rice waxay sheegtay in Mareykanka kala qaybsanaan xoogan dalka ama dadka Mareykanka haysata kala shaki xoogan oo dadka Mareykanka dhexdiisa ama dimuqraadiyadda in lagu kalsoonaado ay u saameysay ruushkuna haatan lacag badan ayuu u ururiyay inuu dagaal dhinac walba ah waday tahay kan militariga ama ay tahay kan sirdoonka ama ay tahay kan dabcan horumarinta gantaalaha badda hoostooda kuwa quusa iyo kuwan haatan uu soo saaray gantaalkan ilmo qabatiga loogu yeeray marka daawadayaasha qiimaha leh Soomaaliyeed waxaan sheegay inaynu ku baraarugno bal xaaladaha iyo marxaladaha adduunka siday u soconayaan dalalka Afrika inkasta oo saameynta ugu badan ay ku yeelan karto ay tahay marka ugu dambaysa haatan inta badan kuma jiraan ayagu ama dhibaato xoogan oo noocaas ay lahayd ma muuqato marka laga reebo dalalkan istiraatiijiga ah ee dabcan Soomaaliya iyo Suudaan iyo kamid yihiin oo badan ayagu muhiimka ah hadhow laga yaabo in la isku qabsado ay si u saameeyo karto oo dabcan dhinacan dalkan Yemen ee asaguna Afrika ka warqabka ah inkastoo dadsan Afrika kamid ah haddana aad inaga inoogu dhow oo gaar ahaan xeebtan badda cas iyo tan kale badda yaradan cadmeed iyo waxa aynu wadaagno marka arrimahan in shaad loogu hayaan jecelahay aan dib ugu celiyo injineer Yaasiin iyo daawadayaasha qiimaha leh si ayaguna aan doodooda iyo u eegno halka ka sii waday Yaasiin